السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب شرفت لواني سلامي ما شاء الله وسلام انتهين ميل بقى جوكتين وحان إلهي بقرتوي ومانتا وحاودا قصو انتان قصيداس قلين وحان إلهي هاي جانل كيدا كعصبتهاي سبسكرايب ده لايك شير كومنت قرح بدن إيسو قر قصيدان والله بقصو قصيدان وحي كدعاday wadanka Yemen gaar ahaan جنوب iyo shimaal ayay u kala baxaan gaar ahaan waxay ka dhacday meel shimaal ib meel la dhahay qaryo ib ee ka dhacday gabadhaas waxa la dhahaa Radwa Cabdalla waxay jirtaa 8 jir habeenkii aqalgalkeeda ugu horeeyay ayay waxay la dhiig baxday ay la dhimatay dhiig bax gabadhaas oo keenayso waqtigii guurkii aan intaan la gaarin 8 jir ayadoo ah baa la guuriyay waxaa lagu daray nin jiro 40 sano 5 marka weyn 40 sano nin jiro ayaa lagu daray waxa soo warisay gabar qaryada mas'uulka ah oo la dhaho Arwa Cismaan waxay tiri familkeeda caad ahaan waxa u leeyihiin Yemeniinta qaryooyinka qaryooyinka kala yihiin laakiin qaryadaas ib waxa laga yaqaanaa gabadha intaanan qaan gaarin baa la guurinayaa gabadhaas soo qabsatay social media meel walba caalamka oo qisooyinkeeda qof walba uu soo qaatay aniga qisidaas ayaa soo xanuujisay ayaan soo qaatay marka asxaabta sharafta leh marka qisidan Arwa Cismaan waxay leedahay Radwa Cabdalla waxay la dhimatay dhiig bax ayadoo 8 jir ah markii hay'adda loogu wacay Chef Children oo hay'adda ciyaalka qaabilsan markii hay'adda xuquuqdeedii ay rabtay inay soo saarto ay dadkii qaryadii ay diideen ee arintii qariyeen oo gabadhii familkeedii aan la ciqaabin ama aan meel la saarin isla markaas ayadana dhibaatadaas Arwa Cabdalla waxay dhacday sanadka 2013 isla qisidan ayadoo ayada la soo isbeenisay oo gabar kale oo ayadana oo Yemeniid ah oo gabar kale ayadana ku dhacday magaceeda iyo faafahinteeda waxaan rabaa part 2 inaan ka soo sameeyo oo gabadhaas ayadana ay ku dhacday isla dhibaatadan gabadhaas waxay jirtaa 11 sano gabadhan waxay jirtaa 8 jir 13 ayay dhacday qisidan waa 13 ayay dhacday qisidan weegan waxa soo isbeenisay oo caalamka dhan ay wada qabsadeen gabadhan Radwa Cabdalla arinteeda meel lama saarin waa la qariyay arinteedu waa la qariyay waxa taasoo keenayso qaryadii dhan inay arintii daboolaan ee qariyaan waayo hay'adii Chef Children gabadhii markii la qaaday oo hay'adii loogu wacay oo waxa mas'uulka ah Arwa Cismaan mas'uulka ah qaryada ay wacday oo la qaaday gabadhii oo la baaray waxa dhacday gabadhii in loo guuriyay nin 40 sano jiro ayadana sanadkeedu u yahay 8 jir marka la rabay in familkeeda la iqaabo maxaa ku keentay la dhaho inay arintii ay qariyaan oo sidii ay arintu ku baaba'day markay ahayd 13 weegan arinta maxaa soo isbeenisay oo hadda maxaa sheekada keenay isla shaqasidan ayaa gabar kale ayadana Yemeniid ah isla qaryadii 11 sano ayadana ay jirto ay ku dhacday dhibaatadaas marka gabadhaas aad qasidan aad u xanuun badan tahay Radwa Cabdalla fasalka labaad ee dhiganaysay waa gabar yar waa 8 jir wallahi kullay waa arin aad u murugo badan waa arin macnaha faafahinteeda waxay qasida la kooban tahay oo la yartaa waxay tahay arinta waa arin yar oo 13 ka dhacday ma yara laakiin waa la soo koobay waayo aniga waxa ka soo aqristay page kana waa arin yar oo macnaha qasida hadda sida aniga nigu soo wariyay ama sida nigu soo hadlay ay u dhacday faafahin iyo waxyaalo badan oo macnaha laga helin iyo dadkii hadii la iqaabi lahaa ama waalidkii ama wixii la xisaab jimi lahaa arinta saan way ka weynaan lahayd waxa lagu leeyahay Yemeniinta waa xeer ay u leeyihiin badankood dhaqankooda waa dhaqan ay u leeyihiin caado gabadha intaan la qaan gaarin ayaa saas lagu sameeynaya subxaanallah ayaa la gurinaya badankood dadkoodna qayb waxay leeyihiin
qisada waxay u keenaysaa daruuf awgeed. waxaa lagu darayaa niman hantiilo ah, dadkii qaryada deganaana ama se u yaqaano tuulo ama se u yaqaano meel baadiye ah, micnaha dad xoolo dhaqato ah, lacag awgeed oo daruuf awgeed u geynayso. laakiin qisada kale oo sida ayadana u dhacayso ay ayadana ka faahfaahin badan tahay, oo micnaha qisadan caalamka hadda meel walba page walba kasoo hadlayo, meel walbana ay qabsatay. gabadhan ayadana 12 jirka ah oo raba ayadana beertatuu qisadeeda inaan kasoo sameeyo. qisadan wallaahi aaday ii taabatay, aad iyo aad ay u xanuun badan tahay. gabadhan yarista oo fasalka 2 dhiganaysay Radwa Cabdalla oo 8 jir ah oo dhiigbax u dhimatay habeenkii aqalgalkeeda, habeenkii ugu horreeyay dhiigbax u dhimatay. aad iyo aad ay u xanuun badan tahay. asxaabta sharafta leh igu qaata, waa markii ugu horreysay qisa aan kasoo sheekeeyo. haddii qisooyin, laakiin qisada inta yartaa sida ay hadda aan niga hadlaayo bay ku kooban tahay. marka ma rabo dad baa qisooyinka hadallo been ama hadallo kale ku daro. ma jecli inaan qiso wicnaha sida u dhacday inaan kasoo hadlo ayaan jeclahay. ma jecli qisada dadka qisooyinka ka sheekeynayo dad baa waxbay maskaxdooda ka sii dhamaystirtaan ay ku darsadaan. qisadii waxaa laga yaabaa inaad page kale ka aragtid ama meesha laga soo saaray ama aad ka fiirsatid ama ka dhageystid, badna hadalkeygii iyo qisaday isla haawayso. marka waxyaalaha qaarkood ma jecli inaan ku dadarsado ama ka hadlo. qisada intaas ayay ku kooban tahay. waxaan rajeynayaa qisada baartituugeedna insha Allah iyadana gabadhan oo Yemenida oo 12 sano jirto inaad ila dhageysataan oo ila daawataan insha Allah. channelkayga hadaa ku cusub tahay walaal subscribe dheh, like, share, comment qurux badan ii soo dhix, like badan ii saar insha Allah. video intaas oo ku kooban yahay qisadan yartaan ii soo wariyay oo niga soo hadlay. insha Allah hadduu ku cajabiyo like badan saar, commentina ka soo qor. sideed u aragtaa, sideyna kula tahay gabar 8 jir ah oo nin 40 jir ah loo guuriyay. waa qiso aad iyo aad u xanuun badan. asxaabta sharafta leh intaas aan ku soo koobayaa. bye bye.